wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga Hilaac qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ayaa wuxuu ka hadlay ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan saddex xildhibaan ayaa maanta mar kale lagu doortay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ra'iisul wasaare Rooble ayaa xaliyay khilaafkii u dhaxeeyay Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeen Mahdi Maxamed Guuleed madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan wuxuu la qaatay agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo gaaray magaalada Baydhabo guddiga doorashooyinka maamulka Galmudug ayaa shahaadooyinka musharaxnimo u qaybiyay musharaxiinta ka soo galaya baarlamaanka deegaanada Galmudug faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geysta oo ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka digay in baraha bulshada lagu faafiyo falal anshax xumo ah guud ahaan warka TV-ga Hilaac waa naga inta